maamulka jaamacadda Badar ayaa shir jirayd ay ku qabteen xafiiskooda waxa ay sheegeen in heshiis dhinaca iskaashiga aqoonta ah ay la galeen jaamacadda Bidana oo laga leeyahay dalka Suudaan. Waa kan hadaba gudoomiyaha jaamacadda caalamiga ee Badar Professor Ahar oo ka warramaya dulucda heshiiska ay wada galeen jaamacadda Bidana ee laga leeyahay dalka Suudaan. waxa halkan heshiis ku saxeexanaya jaamacadda Badar iyo jaamacadda Bidana. heshiiska wuxuu ku saabsan yahay sidii runtii labada jaamacadood iskaga kaashan lahaayeen inay bixiyaan barnaamijyo ka sareeya undergraduate sida u bixi lahaayeen in run ahaantii jaamacadda Bidana jaamacad aad u weyn jaamacadka aad Suudaan looga yaqaan weeyaan heshiiskan runtii fursad u noqonaya dhammaan ardayda reer Somaliland ee raba runtii inay waxbarashada sare sii wadaan run ahaantii waxaanu iska kaashanaynaa jaamacaddan Badar siday u bixi lahayd in masters programs ee u bixi lahayd marka jaamacadda Bidana waxay Badar ka caawinaysaa program runtii magister ah ama masters ah ayaa jaamacadda Badar ay bixinaysaa laakiin cidda shahaadada bixinaysa programada waxay noqonaysaa jaamacadda Bidana ayay noqonaysaa oo ah jaamacad runtii caalami ah waxa kale oo macallimiinta dhigaya ee koorsooyinka dhigaya masterskuna waxay noqonayaan macallimiin ka imanaya jaamacadda Bidana ka imanaya oo runtii aqoontii leh ay ku dhigi lahaayeen oo PhD iyo runtii rag professors ah systemka iyo qaabka loo dhigi academic waxaas oo dhan waa qaab runtii muxuu ahay labada jaamacadood baa wada runtii wada sameeyeen oo aad u sareeya marka runtii fursad ardayga reer Soomaaliland maanta Badar wuxuu ka heli karaa inuu magister masters iyo xataa doctora runtii diyaariyo isagoo Hargeysa jooga inuu diyaariyo isagoo qarash badan ka bixin inuu Suudaan tago oo lacag badan aan ka bixin orfaad badan aanu galin ayuu halkan ku diyaarin karaa macallimiintii halkan ku dhigayna halkan imanayaan oo halkan ay ugu dhigayaan shahaadadu qaadanayana markuu dhameeyana waa shahaadada jaamacadda Bidana ayuu runtii qaadanaya marka fursadaasi waa runtii fursad aad u qiimo badan koorsooyinka ama programska runtii la bixin doono waxa kamid ah programska ku saabsan waxa loo wixii idaara ku saabsan maamulka economics idaarada business administrationka oo masters ah wala bixinaya shariicada iyo luqadda carabida tarbiyada iyo educationka ku saabsan wala bixinaya waxa la bixinaya programo ku saabsan in culumta ICT-da ku saabsan marka programo fara badan oo runtii dalkooda u baahan yahay ay qofkii isagoo jaamacadda Badar jooga uu diyaarin kara fursadan waxaanu siinayna ugu talagalay dhammaan shacabweynaha reer Somaliland iyo si gaar ah ardayda jaamacadda Badar dhigta waxaanu ugu talagalay inuu ardaygu laba shahaado uu qaato mid international ah iyo mid kale runtii dalkeena ah sidoo caalamka meel kasta uga shaqo gali karo jaamacadda Bidana waa jaamacadda ugu waaweyn waa jaamacad runtii ku jirta jaamacadka adduunka ururka jaamacadka adduunka ururka jaamacadka carabta ururka jaamacadka Afrika intaba ay ku jirtaa wana jaamacadaha aadka u waaweyn laakiin runtii systemku waanu adkeenayna oo waxa ka bixi karo oo kaliya cid runtii aqoonteedii iyo kartideedii Cabdulqaadir Codey Home Cable TV Hargeysa.